السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa labadan qodob inaan idin wadaago. Labadan qodob waxay kala yihiin walaalow walaashay cidna naftaada ha u dhiibin. Allah subxaanahu wa tacaala ayay gacantiisa ku jirtaa naftaada wuuna kugu aaminay naftuna adigu ma lihid laakiin waa lagu dhiibtay. Marka cid bini aadan ha ku aaminin naf lagu dhiibtay adiga. Ha u sii dhiibin cid kale ee nafta adigu xanaaneyso, gacanta ku haa, ka fakar qorsheynteeda, ka fakar nolosheeda, ka fakar meesha u wadid adigu u drive naftaada ka soo qaad baabuur adiga leedahay oo tiri qof walaalow full ee drive garay ama walaalay full ee drive garay meel alla meesha ay wadidna ma aqaano. saasoo kale ayaa la mid tahay markaa qof naftaada u dhiibtid. naftaada aday kaa rabtaa wanaajin, aday kaa rabtaa toosin, aday kaa rabtaa hagaajin. marka naftaada hagaaji, u kac, u kuf. qof kale ha ku haleynin naftaan lagu dhiibtay ammaanada kuga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.